nin caddaan beeraley oo 77 jir koonfur afrikaan ah ayaa ka soo hormuuqday maxkamad kadib markii uu toogtay oo uu dhaawacay haweeney madow ah oo uu ku andacooday in uu u maleynayay jeer. Paul Hendrik van Zyl ayaa la xiray Talaadadii kadib markii uu rasaas u riday dhinaca haweeneyda Ramakone Linah oo iyada iyo lamaanaheeda ay ka kulmaysanayeen webiga magaalada Lafalale ee waqooyiga gobolka Limpopo. Van Zyl ayaa wajahaya eedeymo dil ah sida ay sheegtay hay'adda dacwad oogayaasha qaranka NBA. eedeysanaha la xiray wuxuu ku andacooday inuu rasaas ku furay xayawaan. Afhayeenka booliiska Mamfaswa Sibi ayaa bayaan ku sheegay. Linah oo 38 jir ah ayaa dhaawac ka gaaray gacanta halka lamaanaheedu uu ku guuleystay inuu qarayo ka hor inta uusan u sheegin booliiska iyo adeegyada degdega ah. Booliiska ayaa yiri eedeysanuhu waa milkiilaha beerta uu shilka ka dhacay ayuu yiri Mashuudu Malabedisahangi, afhayeenka NBA ee gobolka. Booliiska ayaa gacanta ku dhigay 2 qori, 1 bastoolad iyo 2 qori oo kuwa cirka ah. kala qaybsanaan qoto dheer ayaa ka jirta Koonfur Afrika 28 sano kadib markii uu dhamaaday xukunkii midabta koorka ee dadka tirada yar ee caddaanka ah. Dhacdooyinkan oo kale ayaa inta badan keena caro. sida laga soo xigtay mid ka mid ah warbixinada maxalliga ah, dhibanahu wuxuu ka mid ahaa koox rag iyo dumar deegaanka ah oo ka kalluumaysanayay webi u dhow beerta Mamojela oo ah deegaan aan rasmi ahayn oo ka baxsan magaalada macdanta Lafalale. Toogashada ayaa dhacday gelinkii dambe ee shalay. goobjoogayaal ayaa sheegay in Van Zyl uu kooxda ka soo rasaasay jiinka kale waxaana la maqlay isagoo u sheegay booliisku inuu u jeeday waxa uu maleeyay in ay yihiin jeer iyo daayeer. koox ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee Economic Freedom Fighters ee marka la soo gaabsho loo yaqaano EFF ayaa ka dhigay mudaharaad banaanka maxkamadda sida lagu sheegay qoraalada xisbiga ee Twitterka. Hendrik ayaa lagu sii daayay damaanad lacageed dhan 1,000 rand oo lacagta South Afrikaanka una dhiganta $62 waxaana kiiska dib loogu dhigay baaritaano dheeri ah ilaa 18 May. dhacdo tan la mid ah ayaa 5 sano ka hor nin koonfur afrikaan ah oo beerley ah ayaa lagu eedeeyay inuu nin beerley ah ku dhaawacay qori kadib markii uu u maleeyay inuu daanyeer yahay. dhacdadan ayaa sidoo kale ka dhacday gobolka Limpopo. Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay $376 milyan oo u dhiganta 300 milyan oo pound ama 358 milyan oo euro oo loogu talagalay kaalmada military ee UK si ay u siiso Ukraine. khudbad dheer oo uu jeediyay baarlamaanka dalkiisa isagoo ku amaanay dagaalka uu wadanka kula jiro Ruushka saacadii ugu wacneed. waxaan sii wadi doonaa inaan siino Ukraine hub, dhaqaale iyo gargaar bini'aadanimo ilaa aan ka gaarno hadafkeena fog, kaas oo ah inaan xoojino Ukraine oo aan ka dhigno dal aan la soo damci karin in mar kale la soo weeraro. Ruushka ayaa gantaalo ku garaacay garoon diyaaradeed ku dhow magaalada Odessa ee koonfur galbeed ee dalka Ukraine isagoo burburiyay gantaale iyo rasaas ay sideen Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. gantaalada Onyx-ka oo aad u sareeya ayaa lagu garaacay xarun saadka oo ku taala garoon diyaaradeed ku yaala gobolka Odessa halkaas oo hubka ajnabiga ah laga soo gudbinayay ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga. gantaalada iyo madaafiicda Ruushka ayaa sidoo kale lagu garaacay bartilmaameedyo kala duwan oo military oo ku yaala guud ahaan Ukraine oo ay ku jiraan xarumaha taliska, kaydka hubka iyo nidaamka gantaalaha lidka diyaaradaha ee S-300. Turkiga ayaa ka shaqeynaya mashruuc cusub oo ogolaanaya in 1 milyan oo Suuriyaan ah ay iskooda dalka ugu soo laabtaan. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay isagoo ka hadlayay xiriirka muuqaalka ah ee xafladda furitaanka mashruuca guriyeynta ee Idlib ee Suuriya Talaadadii. Erdogan wuxuu sheegay in 500,000 oo Suuriyaan ah ay mar hore ku noqdeen gobollo nabdoon. tani iyo 2016 markii Turkigu uu bilaabay dhaqdhaqaaqa xuduudaha isagoo oo wajahaya masiibada bani'aadanimo ee qotada dheer ee Suuriya, 500,000 oo Suuriyaan ah ayaa ku soo laabtay aagga nabdoon ee ay abuurtay. isagoo la kaashanaya hay'adda maareynta masiibooyinka degdega ah ee Turkiga AFAD iyo iyadoo gacan laga helayo NGO-yada 57,306 oo ka mid ah 77,000 oo guri ayaa la dhammaystiray ilaa hadda ayuu yiri. ma ahan oo kaliya inaan albaabada u furnay inaan u suurtagelino dadka dulman inay badbaadiyaan naftooda iyo sharaftooda, laakiin waxaan sidoo kale ku bixinaa dadaal kasta oo ay ugu
soo laaban karaan guryahooda, ayuu yiri. Waxaan ku taageernay istiraatiijiyadda socdaalka ee socota mashaariicda lagu dhiirigelinayo soo noqoshada ikhtiyaarka ah, ayuu yiri isagoo raaciyay. Dhismaha guryaha birta ah ayaa ka mid ahaa tallaabooyinkan.